oo markii qofku waxaanu isticmaalo dilkii baa fududaanaya kufsigii baa fududaanaya xataa damir male ilma yaro laga yaabo 10 jir inuu yahay bay 11 nin amba 10 nin kufsanayaan halka waxaad ka fahmaysaa caqli caadi inaanu jirindii waxyaabaha waxaan ku kalifay damir xumada ku kalifay ee ka qaadayna waa daragada ama mid ay isku midana ahaato ama mid ay hubsadana ahaato ama mid ay cabaan ahaato isku soo ururi waa darag weey waa maandoori hindidan iyo bangaalidan aad soo waaridaysay basaska aad ku guraysaa dalkan ma anfacayso oo dhaqaalaha bangaali hindi kameydaan helin dalkan baa ka hesheenay dalkan dhalinyartan camal sameey waana yahay daragada mukhadaraadkaasay bataan dhaqaalihiina nabadgeli maayo kuwii siyaasiyiinta ay u dooranayna waxay ka sheekeynayaan doorashaas bay hayaan dalku meel uu marayo amnigiisa meel uu marayo dawladda ku socda mukhadaraadka lagu wado aqligeena iyo diinteena warba ma hayaan islaamku waxa uu ilaaliyay 5 arrimood bal xataa adyaanta islaamka ka horeysay oo dhani waxay ka sinaayeen 5 inay ilaaliyaan oo islaamkeenu wuxuu yaqaanaa kulliyatul 5 5 lama taabtaanka shanta waxa kamida aqliga aqligu waxa uu kamid yahay xubnaha ilaahayna si kuwa ugu muhiimsan walidaalika quraanka marka ilaahayna canaananayo mar walba wuxuu soo qaataa aqliga fala taqilun liqawmin yaqilun inna fi dhalika laayatin liqawmin yaqilun afala tatafakkarun ni'amka ilaahay ku siiyay kuwa ugu qaalisan buu aqligu kamid yahay in aqliga la ilaaliyo waa 5 arrimood ee diin kasta ilaahay uu soo dejiyay ay ilaalisay wax kasto aqliga bedelaya wax kasto aqliga dhimaya wax kasto aqliga nuqsaan ku keenaya islaamku uu la dagaalamay oo ay ka yihiin mukhadaraad amba wax la cabaya ahaado amba wax la usanayo ahaado ama wax la isku muday ahaado dhammaan islaamku wuxuu yaqaan hal magac waana musakkiraat aw mukhadiraat ilaahayna ashyaada quraanka ku xaramay mid kamid ah weey khamriga iyo waxa la midka oo dhan ay isku nidaamka yihiin aqliga bedelaya magaca doonto adigu isticmaal magaca doonto ugu yaad mar hadduu aqliga bedelayo oo qofka uu ka dhigay sagaga qof aan xog kala garanay إسلام كحوت حجرين حرام كل مسكر حرام النبي عليه الصلاة والسلام وعكستو عقلين بدل يا وحرام هذا ما قاعد تقول به نبي وحط المامين هن أم الخبائث حمان تعارضا هرمود كود إليه مخدرات وفقد مخدرات في استعماله حمان أيضا يده هرمود واحد اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فالنبي عليه الصلاة والسلام كفوا هذا وحيابا عقلك بدلا خمر وضيق ويهي وحي كان لو يسوه سكلي يعني خبائث ثوبن يده هو يوه ابن حمد يدا سبويسا تلك يدا سبويسا خلاف يدا كينيسا بربر يدا غاليا اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فالنبي عليه الصلاة والسلام وحا أرميه نقابين يعورن هو يوتاي كفوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام waxyaabaha laga dhaxlo waxa kamida darabada ama maandooriyaha haday bulshooyinku isticmaalaan aba ay ku dhaxbataan fa innaha tudammiru al-umma khaasatan fi shababiha madaha way dumisaa waliba dhalinyarteeda ay baabiisaa marka ay ku bataan hadii qofku bulshadu qayb kamida waxa ay dhaqan iyo caado ka dhigato waa loo tixgeliyaa ilaahay wuxuu falamma zaaqu azaaqa Allahu qulubahum marka ay leexdeen baan aniguna leexin waxa dooratun baa lagu siinayaa hadda hanuun doortana waa lagu hanuunin hadda xumaan doortana xumaanta ma lagu siinayaa falamma zaaqu azaaqa Allahu qulubahum dadkay darabada iyo mukhadaraat iyo shaqo ka dhigtaan oo ay doortaan waa lagu tixgelinayaa laakiin waxa ogaataa waxay ka dhaxlaan hadmi iyo dimaar iyo burbur bay muddo ka dhaxlaan waliba dadka ugu badan burburkaas soo gaadha ama isticmaalkeedu ku badan yahay waa bulshada inta xoog ah ee dhalinta shabaabka wahwi darabadaas ama maandooriyaas waxyaabuhu baabiyo waxa kamid ah dhaqaalaha qofku hadduu isagu wuxuu siisto waayo
waxay sababaysaa adiga inuu ku booqo waalidkii booqo oo wax dhaco ummadaha marka la baabinayana waxyaabaha loo isticmaalay ka mid ah iqtisaadkii dhaqaalaha ay u baabinayaan nabiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qofka qiyaamaha u horreysay la weydiinayo maalka iyo shilinka iyo dhaqaalaha ka mid ah can maali min ayna iktasaba wa fiima anfaqa halkuu ka keenay iyo halkuu ku bixiyaba waa la weydiinaya waxyaabaha darogada ama maanduuriyahaas ummadaha kala dagaalamaan caafimaadkaa ka mid ah ama mid xisiya ahaado ama mid macnawi ahaado waliba xubnaha bini aadamka ugu muhiimsan ayay darogadaasi ama xanuunkaasi u saameeyaan ummadaha darogada ay ku badatana kathura calayha alamraad xanuunada ayaa ku bataa noocay doonaan ahaadaan caafimaadkuna uu ku yaraadaa bal dhaqaalahooda inta ugu badani waxaa laga yaabaa inuu caafimaad ku baxo ma oga laakiin waa xanuunada waxaa faafinaya waa mukhadaraadka iyo darogada iyo waxa ku dhex jira ay isticmaalayaan weyn waxyaabaha uu baabi'iyo uu sababo waxaa ka mid ah amniga inuu khalkhaliyo oo markii qofku waxaanu isticmaalo dilkii baa fududaanaya kufsigii baa fududaanaya xataa damiir ma leh ilmo yaroo laga yaabo 10 jir inuu yahay bay 11 nin amba 10 nin kufsanayaan halka waxaad ka fahmaysaa caqli caadi inaanu jirin damiir baan jirin dadkan aynu la yaabanay maalin la isku soo xidhiidho iyagoo raxraxana maxkamadaha odayaabaysa waxyaabaha ka taagan iyagoo 10 iyo 15 la isku soo xidhiidho waa maxay sameeyeen ina yar bay kufsadeen oo 10 jira oo xataa dee qofkii damiirka aan u hamuunayn baa 10 nin oo dhalinyaro ah amba 11 nin baa way wada ka tiinadaysan ilaahay buu ku keenay waxa sababaya caqligii baan jirin dad caadiya ma waxyaabaha wax aan ku kalifay damiir xumada ku kalifay ee ka qaadayna waa darogada ama mid ay isku midaan ahaato ama mid ay hubsadaan ahaato ama mid ay cabaan ahaato isku soo ururi waa darogada wey waa maanduuri marka wuxuu sababaya amni xumo dilkii buu sababaya dhacii buu sababaya kufsigii buu sababaya islaamku waxyaabahu ku daweeyey waxaa ka mid ah horta waxaad ogaataa ummad marka lala dagaalamayo waxyaabaha ugu badan lagu isticmaalo ayay ka mid yihiin adiguna waxaad ogaataa marka tahay dal muslima oo diinku aan tirsanaya intaasoo cadow baad leedahay adigu weligaaba waa walaalahayaan dheh waa jaarkayo dheh laakiin diintaada iyo amnigaad haysato iyo horumarkaad haysato dad badan ma farax gelinayo mar walba dagaal baa kugu socda haddaad qabi noqonayso daaday ku taallaa maalin cad baa lagaa faaruqi laakiin cadowgaagu waa badan yahay amnigeena duulaan lagu yahay dhaqaaleena duulaan lagu yahay diinteena duulaan lagu yahay dhalinteena kacaysa duulaan lagu yahay maxaa loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaalayaa maanduuriya loo isticmaalaya kaasaa lagu baabinaya marka waxyaabaha sababa inuu innaga inagu bato maanta kow waxaa ka mid ah istaraatiijiyadda cadowga ay qaateen oo inay nagu dhex faafiyaan waa la soo gelinaya habeen maalin waa soo gelaya ciidankuna way la dagaalamayaan maxkamaduna way xukumayaan haddana waa socdaa martii ka dambaysay amba ay ka casrisan tahay ayaa maalin walba la soo gelinaya ayaamihii horeysay ayna soo gelaysay lacag badanba lama siin jirine dadka waa la barayay iska cuno iska soo celi sida raashinka bukhaarada looga qaato soomaalida arag isweydaar baabay ku socoteeda adan soo celi marka lacagta hesho istaraatiijiyadda ay ka leeyihiin kuwa soo waaridaya waxa weeye in lagu baro hortaad barato dabeedna aad malafsato tiraad meeday dabeedna aad lacag keen dabeedna haddaad weydo dadkaa soo qoobto taasi keenaysa waana tamaanta ay taagan tahay kow waxaa sababaya istaraatiijiyadda cadowga inaga leeyihiin ee amnigaaga duulaanka lagu yahay dhaqaalahaaga duulaanka lagu yahay ee diintaada duulaanka lagu yahay kow waxyaabaha faafinaya ka mid waxyaabaha faafinaya maanta waxaa ka mid ah firaaqada dhalinta marka bilaa camal noqotay sababaha ugu badan waxaan u geynaya waa stress iyo buuq ku furmay iyo shaqo la'aan iyo gacmo la'aan marka cibaadada ku yaraatay dabeedna waa kuwa dadkan ay fahmi lahayn wada silan ee wada maqan iyagoo kula hadlaya meel ay joogaan ba aad garanayn waxaasaa la siinaya amba ha cabaan amba ha lagu mudo amba si kale ha u isticmaalaan dadkeena ilaahay hantida siiye dalka degan tujaarta waxaa la rabaa dadkaa dhalintaa inay camal u sameeyaan
lacagta aqoonada iskaga jirta inay shaqo abuur ugu sameeyaan hindidan iyo bangaalidan aad soo waaridaysay basaska aad ku guraysaa dalkan ma anfacayso kadaa kuwa ku anfacaya waa dhalintaada amba xumaado amba kuu samaadeen kaagaa waani kaagaa wacyigelin u samee kanu ba xaasilan kanu iska tagay waa ajaani wariga lacagta kaa gurto berberada uu joogana ma ogola $10 inuu ka baxo bariga ka ibsan maayo cunto ka cuni maayo qalbi ku wada xareyseen sidii maxaabiistii way wax ku cunaan raashin xataa ka ibsan maayo iska daaw inuu hotel soo galo kalluun iyo hilib ka dalbaday kaaga kula joogay berbera ee bila camalka ee tolka ah ka shaqaalaysi xataa wuxuu ka qaadaa wax qof uu galay inta meel kale eegayso kuwa shaqaalaysi waxaan maalmo basaska aad ku sii guraysaan nama anfacayso adeer dadkiina u tura oo dadkiina shaqada bara oo dhaqaalaha bangaali hindi kamaydaan helin dalkan baa ka hesheenay dalkan dhalinyartan camal sameey waana yahayn darogada mukhadaraadkaasay bataan dhaqaalihiinu nabadgeli maayo xafiisyadu istaa qurux badnaan maayaan dadkan dhalintan camal ugu sameey waxyaabaha boorinaya waxa ka mid ah ee keenay camalaantaas ka mid ah islaamku wuxuu kula dagaalamay dadka in diinta laga dhiso oo iimaanaadka laga dhiso oo wacyigelinta aynu ku badino oo kuweena salaadiinta kuweena cuqaasha kuweena culimada kuweena siyaasiyiinta aynu iska kaashano sidii mukhadaraadka aynu ummadeena uga dhex qaban lahayn haddii taa la waayo wacyigelinta ay ku badato ee joogsan waayaan islaamku wuxuu u sameeyey waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaaficu linnaas in xoog lagu qabto oo la ciqaabo oo la xukumo oo la tacsiiro waa dadkeennii oo inaga xumaaday si xabsiyada ay uga soo baxaan iyagoo oo wixii ka toobad keenay qof kasta oo inaga midina waa dawlad haddaynan ciidanka la shaqayn laamiisa kala duwan mukhadaraadkaasi inaga joogsan maayo dadku waxay sugayaan cid wax ka qabataa dawladdu waa aniga iyo adiga iyo inta naga maqan dawladda ay sugayna horta ka timid shacabku bay ka timid madaxweynuhu shacabku ka yimid wasiirku shacabku ka yimid ciidanku shacabku bay ka yimid haddaynaan la shaqayn oo aynaan soo sheegin meelaha lagu yimid meelaha lagu dilaalayo meelaha lagu qarinayo gurigaagay gelaysaa oo kaygay gelaysaa oo ka carruurtaadii gelaysaa marka waa inaan dawladda la shaqayno oo iska kaashanaayo intaynagu isku foofsannahay adeer waa lagugu foofsan yahay kuwii siyaasiyiinta aynu dooranayna waxay ka sheekeynayaan un doorashaasun bay hayaan dalku meeluu marayo amnigiisa meeluu marayo duulaanka ku socda mukhadaraadka lagu wado caqligeena iyo diinteena warba ma hayaan doorashadu waxay diin dambaysee dalkan difaaca oo diintiisa difaaca oo mukhadaraadka dhalinteena lagu baabiiyey adeer ka hadla oo ganacsato qaybaa ka qaata oo ciidanka amniga halala shaqeeyo